naxariista ilaahay waxaa ka mid a inuu oggolaaday inay addoommadu masaxaan khufaynkooda iyo sharabaadadooda markay weyse qaadanayaan intii ay beddelkoodii dhaqi lahaayeen ayadoo la masaxaya hal mar dhanka sare ee sharabaadka midig oo lagu masaxayo gacanta midig dhanka sare ee sharabaadka bidixna lagu masaxayo gacanta bidix isagoo fidinaya farihiisa kana bilaabaya faraha cagihiisa ilaa canqowga ama kuraankurta oo uu u masaxayo si wada jir ah ama wuxuu ku bilaabayaa sharabaadka midig kadibna ta bidix arrinku waa fudud yahay waxaase shardi ah in sharabaadku nadiif yahay waana inuu asturaya cagta ilaa kuraankurta iyo inuu gashtay isagoo weyse dhammaystiran weysaystay waqtiguna waa habeen iyo maalin qofka aan safarka ahayn iyo 3 maalmood iyo habeenadooda qofka safarka ah lagana bilaabayo masaxadda ugu horraysa markay weysadu jabto tusaaleaan hadduu weyse qaatay salaad subax una gashtay sharabaadka kadibna weysadu ka jabtay 9kii subaxnimo uuna weysaystay 12 duhurnimo isagoo masaxay sharabaadka waxa waqtigii ka bilaabmaya saacadda 12 ma aha 9ka subaxnimo masixiddana waxaa la oggol yahay weyse jabka yar weyse jabka weyn sida janaabada waa inuu qofku qubaystaa qofka siiba sharabaadadiisa ama waqtigii ka dhammaado weysadiisii way u jirtaa waa haddii aanay wax kale ka jabinin hadduu doono inuu mar kale masaxo waa inuu marka hore u weyse qaataa weyse dhammaystiran oo uu maydhayo lugihiisa kadibna wuxuu gashanayaa sharabaadkii isagoo ilaalinaya shuruudihii hore